ومحي حديد كدحية يهود هي يوروب أما حديد كدحية يهود هي إسرائيل سيدابا يسوقوا قنعيين إسرائيل يوروب إنay sidan u taageerto ay waajahow noqdaan haddaynu eegno masiixiyadii hore siiba labadii qole ama orthodox ama catholic ahaa waxay rumaysanaayeen ciise inuu sixiroolo ahaa bidcoolo ahaa fitna dawladda uu ku wado hooyadiina inay zaaniye tahay dabeetana maxkamadoodii la odhan jiray sanhadariyiintu waa 70 oday oo 70kii nebi muuse raacay bay ku qiimeeyaan maxkamadda ay lahaayeen nimanka yuhuudeed oo ka kooban 70 oday iyo kaahina isugu jira iyo boobkooda ama wadaadkooda ugu weyn ayaa waxay go'aamiyeen nebiyullaahi ciisa iyo laba tuugoo kale saddexdaa in la salbiyo nebi ciise iyo laba tuugabaa markaasi la salbiyey iyagu may salbin karaynin ninkii romaniska meesha uga talinayay bay u tageenoo bilatus la yidhaahdo waxay yidhaahdeen waxaanu gaadhnay xukumaa saddexdan qof in la salbiyo waxaanay lahaayeen iyagu xukum daati iyo waxuu eego hoose boqorkaasi wuxuu ku yidhi markaa anugu waxaan u arkayaa inuu bari yahay ninkan aaleedin ha la salbiyo ee hubiya arrinka kan waxay yidhaahdeen weedha caankee ah damuhu calayna wa calaa awlaadina dhiiggiisa annagaa dusha ku qaadnay iyo carruurtayaduba ee ciise ha la dilo waana ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم يدو يهودي أي ساسي اعتراف سنتي باعترافهم إليين عيسى وادل هو يدينا يعيبتك الشيغيان تلمود كودنا وقرن يهي عيسى المسيحين دينتي يهودا كر الدوبي oo sana macaabudo masiixi kastoo dunida ku noolna inuu wathani caduwun lilaahi walilyahuuda yahay baa talmuudkooda ku qoran waxaa isqaban la markaas hadduu arrinku sidaa yahay iyo haddana maanta kiristanku inuu taageeraa xaggay ka soo baxday cadaa shadiida baa u dhexeeyey yuhuud qur-aankuna waa ka tilmaamaya waqaalat alyahuudu laysat الnasaara calaa shayin waqaalat الnasaara laysat alyahuudu calaa shayin يهود مسيحيين تمركز ماشي هيستين ويكسرين بيت القدس يا فلسطين يا وحنودن وحكسوا عليي لح بقول يا دوري طبنكي ان دولة دي بيرشيا يا كسوا علي شيء يهودي لسعتي وحلا هذا الا لحدا كونوا كريستيان قدس كده هذا كده لين بالله هذا كنيسة القيامة ندبي قبطسية وحدب تبنيه سنة كدب دبو سوعليي هيراكليس isna waa ka aargutoon nimankiina waa laayay kristanna meeshuu ku soo celiyey yuhuudna wuu ka saaray falastiin dhammaanteedba waxa yuhuuddii labaad soo noqotay been idhi xuruubu saliibiya wakhtigeedii laakiin xuruubu saliibiyu kristan baa ku soo noqday ee yuhuuddii iyana waa u diideen marka qura ee taariikhtaa loo oggolaaday inay falastiin yimaadaan waa salaaxuddiin alayuub iyo wakhtigiisii markii ay joogtay intaa kadib haddaba waxaa soo baxay madhab cusub oo diineed oo protestant la yidhaahdo madhabkaasi cusubi waxa uu la yimi fikrada ah yuhuudi inay ammaanan yihiin ee wax dembiya inaan korkooda la saarin bale waxay ku dirqiyeen xataa faatikaanku inuu ka noqdo inuu ka beri yeelo yuhuud damu masiix siday tani u dhacday marka martin luther waa nin wadaad u dhashay waddanka jarmal dabeetana madhabkan buu la yimi calvin nin la yidhaahdo faransiisaa taageeray protestantka dadka la yidhaahdaa ilaa 7 branch 7 caa'iladood bay u qaybsamaan 28 ilaa 40 madhab ama kiniisadina way hoos timaadaa waxay kaga gedisan yihiin
caqaa'id cusub bay la yimaadeenoo kow waxay kaga gedisan yihiin inaan loo baahnayn wadaadkii boobkee dembiga dhaafi jiray waxay idhaahdeen qof wal oo ciise rumeeya ciisaa dembigiisa dhaafaya mar haddaad rumayso inuu mukhallis yahay intaasaa kugu filan bay leeyihin camalba looma baahno kale rumayntaasi baa dembigaaga lagu dhaafaya laba waxay la yimaadeen suldadii tacliimiga ahayd maalan katholigu wuxuu rumaysnaa boobkunbaa fasiri kara kitaabka saa daraaddeed 1000 sannadood dadku may arag kitaabkuba meeluu yaallo wuxuu qudhee dhex yaallay kiniisadda wuxuunbaana fasiri karayay boobka iyo gurubkiisa waxay dhaheen taana waxba kama jiraan qof waliba kitaabka wuu fasiran karaa waanu akhrisan karaa waxay ahayd wadaadada diintu inaanay guursanin waxay dhahdeen waxba kama jiraan wadaad kasta oo protestant ahi waa guursan karaa waxay ahayd injiiloo qura in la haysto waxay dhahdeen waxba kama jiraan cahd alqadiim iyo cahd aljadiid oo wada socda waa in la haystaa king james version bay la yimaadeen iyo arrimo la mid ah si dadku uu kitaabka u akhrisan karo waxay faafiyeen yurub markii ay ka bilaabmeen tacliimka sida ogeed jaamacaadka qadiimka ee yurub ama maraykan dhammaantood wadaaddo kristana sameeyey harvard university john harvard baa sameeyey nin la yidhaahdo wadaad ahaa marka la eego jaamacatu yiil jamaaca min rijaali diin baa samaysay marka la eego princeton kiniisa almashiikhiya ayaa samaysay pennsylvania university marka la eego kiniisa alasqafiya baa samaysay jaamacatu columbia alkiniisa alasqafiya baa samaysay jaamacatu brown alkiniisa almacmadiya baa samaysay cambridge university oxford university dhammaantood waxaa sameeyey jaamacaadka iminka la ammaano wadaadadii brotestantka ahaa oo rabay dadku inay wax baran karaan intaa waxaa raacda duwal dhan oo scandinavianka canada australia ingiriiska maraykan duwal dhan baa qaatay madhabkan brotestanka ah innaga maxaa inaga khuseeya madhabkan brotestanka markaasaanu sheegaynaa waxaa inaga khuseeya 3 shay oo aanu kristanku rumaysnayn bay iyagu rumeeyeen 3daa shay waxaa ka mida kow yuhuudi inay tahay shacbullaahi almukhtaar wa abnaa'ullaahi wa axibbaa'uh yuhuudi shacab ilaahay doortay oo weli mudan oo mudnaantaa haysta inay yihiin ka labaad waxay dhaheen yuhuud ilaahay baa ballan aabbayaashood uu siiyey ibraahiim isxaaq iyo yacquubba cahdi abadiya ku siiyey falastiin inay iyagu leeyihin taasina waa caqiido diineed oo protestan oo dhammi rumaysan yihin ka saddexaad waxay idhaahdeen ciise ilaah ciise siduu u soo noqdo kamaa yazcamuun ciise wuu imanayaa 1000 sannadood oo dambaa dunidu barwaaqo ku noolaanaysaa soo noqon maayo haddaan 3 shay la helin ciise soo noqon maayo haddaan 3 shay la helin kow reer banu israa'iil in falastiin la siiyo oo ay qabsadaan falastiin 2 qudus inay ka taliyaan 3 haykalkii in laga dhiso binaa ilhaykal qudus laga dhiso 3daa shay oo dhaca mooyaane nebi ciisena iyagu say sheegayaan dee ilaah bay ku tilmaamayaane soo noqon maayaan sidaa awgeed si loo dedejiyo ilaahay inuu dib dunida ugu soo noqdo waa inay duwalka kiristanka ay qaataan madhabka odhanaya falastiin waa in yahuud la siiyaa baytalmaqdisna waa inay yeelataa haykalkiina waa in laga dhisaa halka kiniisa alkatholikiya ama kiniisa alorthodoxiya labada kiniisadooda kale ay rumaysnaayeen waar cahdigaasi waa horuu dhacay masiix alciisa way beeniyeen waa dileen say iyagu qabaan isagaa mukhallas ilaahay dhulka u keenay bay leeyihiin ciisaana sheegay bay leeyihiin in orshalim la kharaabinayo haykalka in la duminayo yahuud in la eryayo dembigooda daraaddeed nabu'aadkan aad sheegaysaana beri horay dhacdo qoorash ninkii boqorkii ka telinayey bershiya markii uu dib u qabsaday meesha tan bay nubuu'addanina dhacday bay leeyihin oo nubuu'addanba waanu ka sugaynaa ma jirtee yuhuud waa tii lagu soo celiyey baytulmaqdis mar labaad waa tii haykalka laga taagay tafsiirkiinan waxba kama jiraan bay leeyihin laakiin caqiidadani waa caqiidadii uu inta badan faafinayay alqadis agostiin waana caqiidada maanta ay rumaysan yihiin dowladda maraykan dowladda ingiriis skandinavianka australia canada
all Protestant people waa caqiidada ay rumaysan yihiin caqiidadani goormay bilaabantay waxaa jira niman Kristan ah oo ka sahyuunisan yahuudda waxay ku tilmaamaan Christian Zionism baa la yidhaahdaa Christian Zionismku isagaa ka adag yahuudda waayo yahuudda ragga aasaasay intooda badani diinba may haysan Herzl mulxid buu ahaa Beni Gurion mulxid buu ahaa Mayer habartii Golden Mayer mulxidad bay ahayd Moshe Dayan mulxid buu ahaa Weizmann madaxweynahoodii koowaad mulxid buu ahaa yacni kullu intooda magaca leh waxa la tilmaamaa odaygii beegan la odhan jiro quraba wax salaad tukaday ku jiray beegan baa wax kaniisad tagay oo salaad tukaday ku jiray xataa isxaaq raabinkii gaabnaa mulxid buu ahaa bay leeyihin marka diin ahaanba may u rumaysnayn laakiin nimanka diin ahaan u rumaysan bahashatan ay diinta ka tahay waa Christian Zionismka Christian Zionismkani wuxuu bilaabmay waddanka Ingiriisku ka bilaabmay waddanka Ingiriis inuu kiniisaddan Catholiga ka go'o waxa sabab u ahayd boqorkii Henry sideedaad la odhan jiray ayaa u baahday islaantiisii inuu furo islaan kala guursado dabeetana kiniisaddii baa diiday Romanskii baa aqbali waayey dabeetana waddankaba wuu ka jaray mid kaluu guursaday waa xaaraan bay dhaheen talabaadaad guursatay tii kaluu haddana ka takhallusay mid 6 dumaruu guursaday kolba midna waa dilayay midna waa wuxuu odhanayay guurkii horaan asixin markaasuu mid kale iska guursanayay boqorkaasi markuu halkaa maray ayuu wuxuu u rogay Ingiriis oo dhammi inay injiiliyan noqdaan inay ka baxaanba kiniisadda Catholiga ah wadaadkii boobka ahna wuxuu yidhi Henry iyo wuxuu dhalay ilaa abadi la aabidin ilaahay naxariistiisa waa ka mamnuuc oo kiniisaddu tardi ayay isagana ku xukuntay waxaa ka bilaabmay waddanka Ingiriiska maalan ninkii la odhan jiray Thomas Brightman waa nin caalim laahuud yahuudi asalkiisuna ahaa kitaab uu qoray uu kaga warramayo axdaasta dhici doonta aakhiru zamaanka kitaabkiisa wuxuu ku soo bandhigay fikraddii ahayd in allaha yuriidu cawdata alyahuudi ilaa falastiin waan yaxkumuu ilaahay wuxuu rabaa yahuud in falastiin lagu celiyo oo ay bayt ilmaqdis xukumaan oo haykalkii ay dib u taagaan si ciise u yimaado oo 1000 sannadood ciise dunida uu xukumi karo fikraddaa waxaa sii qaatay niman la yidhaahdo Puritans almutatahiruun waa jamaaco Protestanka ka mid ah oo ku dhawaaqaya hadda wakhtigaynu joogno 350 sano ka hor in ka badan ayay iyagu waxay faafinayeen fikradda ah yahuudinimada in la nooleeyo bal ee dawladda Ingiriis waxay u soo jeediyeen tawraad in dastuur looga dhigo waddanka Ingiriiska tawraad in dastuur looga dhigo waddanka Ingiriiska bay soo jeediyeen waxay soo nooleeyeen luqa cibriya waxay la baxeen magacyo cibriya ninkii la odhan jiray majmuuco la yidhaha Leverels ayaa fikraddaas keentay dawladda u keentay iyagoo leh tawraad ha laga dhigo dastuurka waddanka Ingiriis inuu noqdo laba wadaad oo kale oo cilmi laahuudka ku takhasusay ayaa iyana mudakaro kala qoray oo dawladda Ingiriis u soo bandhigay iyagoo leh shacabka Ingiriis iyo shacabka Holland sharaf waxa ugu filan carruurtii reer banu Israa'iil inay doonyo ku soo qaadaan oo dhulkii Ilaahay u yabohay ay geeyaan waa 1649 marka dawladda Ingiriiska la hordhigayo barnaamijka ah in la soo raro yahuudo la geeyo Falastiin marka aynu eegno mafaahiimtaasi jadiidka ah ninkii la odhan jiray Cromwell waa ninkii thawradda ku sameeyey boqorkii Ingiriiska jamhuuriyaddii koowaad ee ka dhalata waddanka Ingiriiska markii la samaynayey wuxuu ka khudbadeeyey Whitehall meel la yidhaahdo Westminsterka u dhow waa 1655 waxa uu ku dhawaaqayay yahuudda in Bariitaaniyana dib loogu soo celiyo waayo Ingiriiska qoladan hortood 3 qarni ka hor ayaa laga mamnuucay waddanka Ingiriiska in yahuudi degto dabeetana wuxuu soo tarxinayaa oo boqorka u sheegay
in qaanuunkaa la saaro oo yuhuudi waddankan ay soo degi karto. waxay yidhaahdaan Sir Henry Finch oo mustashaar qaanuuniya u ahaan jiray ninka boqorka Ingiriis ayaa 1621 isna buug buu qoray uu kaga warramayo The World Great Restoration. isna waxa uu kaga warramayaa yahuud al-umma al-yahuudiya in la geeyo la ictiraafo waddan la siiyo. soo duuduub faransiiskiiyo intii kaatolig ahayd si ay u gashayba iyagoo kaatoligiya ayaa iyana fikradda markii dambe ay ku faaftay ilaa iyo kutaabtoodii nin ka mid ah Philip Gentle nin la odhan jiray ayaa wuxuu soo jeediyey dowladda faransiiska wuxuu jeediyey fikrada ah qudus in Rome lagu bedesho yahuud si aynu qudus u siino Rome aan muslimiinta siino. markii dambe waa lagu kaco isagana waaba la deldelayay. يعني فكرتها waxay soo abuurmeen waqti aad u horeeyay xataa hadaynu eegno falaasafadii ama udabadii Yurub Orshalim iyo siday ugu gabyayeen gabayayadoodii waaweynaa waxa kamid ah Milton, Lord Byron, William Burke, Alexander Pope, Coleridge, George Eliot, Jack Bossy, Racine waxa soo dhami waa dadkii ku heesayay ku gabyayay أورشليم اليهودية. حتى فلسفة وقت كان نولا كل يدادو آد بمشة تانية نوهد لين باسكال باكميدا كانت باكميدا نيوتن باكميدا تشاك روسو باكميدا سيدا كاتبة ريجينا الشريف كتاب كده يكون صابر نكتي. وحاصل ممكن يسوقين وحويا دولة دا إنجليز عقيدة أن يهود ماشي لقوا عليا بقاضتي. شعب كبروتستان كينا ميلو دقن يبقى فكرة سالقا دادعية إن بدن والله هولقلي سي فكرة سيو أميل مرتو بوغاقا دو تراب بدن بالغا قري إن فكرة سي هول مرتو مثلا مركانا يقنو لورد شاتسبري وإيرال أوف شاتسبري شافتسبري ميالي دادا نين لورد وهانجري وحو قري دراسة صدن بيجكات كاكوبان oo uu soo bandhigayay madaxtooyada waddanka iyo dawladda Ingiriis waxay fikradaasi ka warramaysaa waa ninkii soo saaray eraygana watanun bila shacb li shacbin bila watan buu ka hadlaya waa awwal marra fi taariikh weedhan la maqlo waddan aan dad lahayn iyo dad aan dhul lahayn hal isla raadiyo buu leeyahay yahuudi waa dad aan dhul lahayn waddan aan dad lahaynina wuxuu ka dhigayaa inuu yahay Falastiin. فكرة عين كاسية سياسيين تواوينا من رجال الفكر في بريطانيا أو كمدي هاي دوك أوف كنت أو كمدي هاي رئيس الوزراء هذي جلاكستون لورنشري أي آدو قنعي فكرة داسي مدة كده سعودي إلى حد أي قاعده إن السياسيين تودو قنعان فكرة دا أورانيسا فلسطين وإن يهود سينا مصالح دا إنجليز كباي ayay u adeegaysaa oo dawladda Uthmaaniyana way daciifinaysaa dawlad Carabeed oo muslimo xoog leh inay dhalatana way diidaysaa marka waxa isku darsamay bay dhahan siyaasa mikaafiliya iyo sahyuuniyada masiixiya baa isku darsamay oo ah masaalix ay nimankii siyaasiyiintii ka dhex arkeen iyo nimankii Protestantka diin ahaan waxay ka dhex arkeen saadaradeed ayay fikradani xoogaysatay ilaa xad ay gaadho mashaariic dawladdu ay soo bandhigto inay noqoto kutub aad u tiro badan aan hadda wada akhri karina laga qoray mas'aladatan waqtigaasi مثلا lord Palmerston lord ka la yiraahdo oo wasiir khaarijiya waxay samaysteen Ingiriisku qunsuliyad bay Qudus ka samaysteen waxaana loo sameeyay qunsuliyadda nin William Young la yiraahdo oo sahyuuni masiixiya ah waxaana loogu talagalay inuu ilaaliyo jaaliyadda yahuudiyada Qudus degan waa 1838 taqriir buu soo diray dawladda Ingiriis uu sheegay meeshaba waxa yahuud ka degan 9690 yahuud baa meeshaba degan buu leeyahay Falastiin oo dhan وإنجليز كوحو قرية ما ها مسلم وحو قرية
weliba ay qorayso safaaradda ingiriisiya meesha ku taallay taasi waxay abuurtay in dowladda ingiriis iyo boqortooyadoodii iyo waxoodii oo dhamme ay arrimahaasi ku dadaalaan yahuuddu wakhtigaasi shakay ka qabeen inay falastiin degaan saddex sababood daraaddood waxay soo arkayeen inay ducafo yihiin hadday meesha tagaanna wixii yuhuudda hore ugu dhacay inay ku dhacayaan oo dad badan oo yuhuuda inay cuhmaaniyiinta iyo carabtu layn doonaan qodobka labaad waxay yuhuudda markaa ugu muuqatay tacaalimta talmuudkoodu inaanu dhigaynin waa hore waxa soo baxay nin la yidhaahdo ibnulkowkab ama baarkuuba ay ku tilmaami jireen oo sheegtay masiixii inuu yahay muntadirkee yuhuudi ay sugaysay oo falastiin inay ku noqdaan isku dayey waa qabla alislaam 130 miilaadiga meelaha markay maraysay dabeetana imbaraatoorkii romaniya mariyey kadib waxay yidhahdeen wixii waagaa inugu dhacay mar labaad inuu inugu dhaco ma u diyaar nihin talmuud baana noo diidaysaa qodobka saddexaad waxay u arkayeen masiixa iyaguna sugayaan iyana masiix kaley sugayaan masiixay sugayaan oo yimaado mooyaane inaanay bannaanayn yuhuudi inay ku noqoto meesha waana caqiidada ay hadda rumaysan yihiin malaayiin ka mida yuhuud waa kuwan israa'iil ka soo hor jeeda ee yuhuudi waa caqiidaday rumaysan yihiin laakiin qoladan sahyuuniyadu waxay ku qanciyeen sida wilaayatulfaqiihii shiicadoo kale cid ka sii wakiila in la heli karo meesha sii joogi karta in la heli karo waxaan ku soo koobi doonaa wakhtigaas kaba dhammaanayee maadaama yuhuudi dilal badan ay la soo kulantay inaanay hunguraynin inay meesha ku noqoto markii qaysarkii aliskandar la dilayna 1 milyan iyo dheeraad yuhuuda baa ka soo hijrooday laakiin urub algarbiya baa istiri ku cadaadiya in falastiin la geeyo way ka sii hijroodeenoo maraykan bay iska tageen 90gii markii haddana ay yuhuudda kale raashiya ka soo hijroonaysay brotestanku waxay u arkeen markii horey fursaddaasi dhaaftay inaanay mar labaad dhaafin waa loo diiday yurub iyo maraykan inay degaan waxaa loo fasilitayt gareeyey in la dejiyo israa'iil milyan iyo dheeraad baa berigaa dhoweydna meesha la dejiyey caqiidadaasi ay ka dambeeyaan nimankaasi christian zionistku oo aan odhan karo waa madaxdii ingiriis waxay rumaysnayd winston churchill baa ka mid ahaa kuwii rumaysnaa oo wuxuu lahaa laba calaamo oo la hele mooyaane yuhuud in meeshaa lagu celiyo waa raggii ku dhawaaqayey lawrence oliphant baa ka mid ah oo buug qoray land of jalcat la yidhaahdo oo masaladan kaga warramayo weliba kani buuggu qoray wuxuu leeyahay carabta meesha degganna sidii loo galay hunuudulxumarkii maraykan degganaa ha loo gala buu leeyahay qiimo ma lehe fikraddaasi weliba wuxuu ka dhaadhicinayey ra-iisul wasaarihii baraytaaniya dezra'iil lo odhan jiray iyo wasiiru khaarijiyadiisii lord salisbury lo odhan jiray ayuu fikradda u soo bandhigayey oo loo keenay ilaa dawla alcuhmaaniya lagala hadlay markaan soo koobo yahuud waxaa meesha keenay waa christian zionism yuhuudi kadib waxay soo dhiiratay markii uu ku guulaystay ingiriisku wacdi beenbeena inuu u qaado carab oo ku yidhaahdo dowladnimaan idin siinayaa dagaalkii koowaad ee dunida laakiin waxaan idinka codsanayaa turkiga inaad dagaalkiisa ila gashaan iyadoo la leeyahay turkiya may jebin karaynin ciidamadoodu qaabkay u dhisnaayeen laakiin carab baa waxay aqbashay tareenka xijaas iyo istanbul isku xidha oo caalamalislaami oo dhan ciidamada turkiga ee jooga zaadka u sida inay gooyaan tareenkaa markay gooyeenna ciidamadii ay lahaayeen turkiga iyo caalamka carbeed baa kala go'ay dabeetana waxaa la jebiyey ciidamadii meesha tan wakhtiga carab uu sidaa u sheegayaan xagga kale wacdu balfoor baa socday oo dowladda maraykan iyo wilsonkii maraykan ayaa isku waafaqay carab inaan waxba la siinin laakiin yuhuudiin meesha la dejiyo carabna waxaa loogu warramayaa dowlad in laydin siin doono taariikh badan oo baabkaasi ku saabsan sisbeacon iyo wacdu balfour waxay u baahan tahay runtii in si gaara looga warramo laakiin uun muslimiintu iyagaana isjebiyey meeshana
yahuud waxaa keenay ingiriis iyo yurub iyo waddanka maraykan oo madaxdiisii u dambayseeyana ay qaateen christian zionismkaasi ay qaateen madax badan oo maraykanku lahaa labadaa guruuboo isu tegay baa meesha tan dejiyey iyagaana go'aansaday dadkii go'aansaday inay yuhuudda meesha dejiyaanna weli waa loo dacwoonaya iyagoo qorallada qaarkood ay tilmaamayaan sida red indianiska loo xaaqay oo kale in loo xaaqo maraykanna intuu veto isticmaalay intii united nation jirtee ugu badan dhowr iyo 40 ka mida qadiyadda israa'iil buu ku isticmaalay dhowr iyo 40 veto ayuu ku isticmaalay qadiyadda ay leedahay marka qudus gaala qaadatay israa'iilla wakiil bay uga tahay yahuudi ma taagnaan karto ka dawla bani israa'iil waanay rumaysnayn yuhuud oo dhan in badan oo ka midi laakiin waxay u taagan tahay danaha reer galbeedka inay fulinayso danaha reer galbeedka inay fulinayso u jirtaa inta reer galbeed danahooda uu ku jirana taageeradooda way joogaysaa sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin